بس كسر عتادي شو نقدر فلان لم لا أنا قريلا قال ولا كار أبصر بالك أبضان بي قالوا كل سيارة هذه قالوا ناس كنت يعرفوا قالوا لا كاميرا تنا قبطة برابر جر إلا وقالوا ما كودي إلا وقالوا ما كودي أنا عليك أصلا صحيح أبصر بالك كيف هو نفسنا مقاضي يعني كسر ninka qabiilkayga weydiiyey saadaan qabiilkayga aan ugu sheegay timihii intaa ku talo iga foqdo intuu iga fujiyey wuu iga fujiyey intuu saay qabtay gamiga sii adiga mise kaftanka maxaa kaftan ka sheegaysaa ani nafsadaydu weeyaan halka السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن أو ناكسن أصحابتنا قيمة هي قدرنت مضنو أصحابتك حرن يوتيوب شانل السمادون ميديا ومقال كله يجوب كله يا أصحاب عصب يا لوا قبضات وآد فنوا ما أنت حنجعل إن آد قصد دونتان أصحابتك حرن السمادون ميديا بس أنت نقدر قلين برنامجنا يقصر كان أدكو حساب بدن له وحينك عطنيا إن آد channelkan aad noo subscribe gareysaan muuqaalkan aad like gareysaan siina share gareysaan si asxaabteena kale uu gaaro waxaan ku hormarayaa canabi waxa maanta hor fadhidaa hada si qoslaysaa qosla ku dambeeyay bal marka hore horta Samadoon Media maanta hor fadhidaa asxaabta ku xiran maxaad leedahay asxaabta ku xirnaad baan u salaamayaa waxaan leeyahay aad baad u mahadsantiin inta aad joogtaan waad ku mahadsantiin inta aan joogno waxaan leeyahay imaada oo soo booqda waxyaabo fara badan ka arki doontaan kulli barasho wanaagsan in badan waan isbaran doonaa imikana intan wajigayga aan garanay meesha ku dhex jirtaa ee barta magacaygu waa Canab barasho wanaagsan asxaabta waan soo dhaweynayaa inta joogta sii jooga inta baqana imaadaan leeyahay aad baad mahadsantiin mikrofoonka nasiib oo imaanka la ka qaaday هاي صح سو غاريا هذا العادي واي كل ku dheeraan maayo bal waxaan leedahay asxaabta Samadoon Media asxaabta waxaan leeyahay horta aad baan idin salaameynaa waan soo dhaweynaynaa anagu adiis baan nahay macnaha istaafurla waan cusub nahay Soomaali baan nahay adiis ma adasoo wahan waa sheeko kale u kaadiyo soo walaalkan hore inoogu sheegay maanta asxaab cusub baa halkan idinka muuqata magacaygu waa Daaragsan Maxamed Cabdi waxaan rajeynayaa inaad soo dhaweyn doontaan walaalkeena meeshuu taagan yahay meel ka sareysa aad gaarsiin doontaan wad maasantiin ku ayaga wax ma sameeyay Maxamed Cabdi والله ارتبا فيديو عصب iyo waxa la dhahay barnaamij kale cusub maanta waxaan joognaa guriga walaasheen Canab oo nagu soo dhaweysay dad cusub noo yihiin maanta waxaan noo martino ay Canab iyo hoodo insha Allah waxaan rajeynaa barnaamijkan wadano inuu noqdo mid aad iyo aad niga farxiyo hadii wax kale inta ka badan aan dhahayna ma lahan like iyo share iyo comment subscribe intaas la noogu dadaal intaas hadana siisiin wax kale niga baahna ma lahan wixii kale ana ni keenayna insha Allah intaas ku dadaaladin okay asxaabta aad u mahadsan yihiin inana aad baad u mahadsan tihiin intii hore noo joogtay on ma cilnina inta nagu cusub soo dhawaadaan leenahay ha ilaawina subscribe gareysaan channelkan muuqaalkan alla gareysaan siina share gareysaan soo asxaab kale u gaaro maanta waxaa wadnaa barnaamij intaad joogtay maxaa kugu la yaabadnaa la yiraahdo haye ana baan ku bilaabayaa wala isfaqaya ana intaad joogtay wixii kugu la yaabadnaa la kulantay bal waxa nooga sheeg aan kugu daray la yaabku waxa ku raacsan wixii kugu farxad badnaa iyo sidoo kale wixii kugu murugta badnaa saddexda shay waad israacinaysaa haye way okay saddex shay oo wixii weydiiyay inay caadi ahayn laakiin midkaan ka hormara waxaad ku hormaraysaa wixii kugu la yaabadnaa horta waxay ugu la yaabadnaa la yaab xitaa lama dhigi kara igu qiiro badnaa ya
waa la yaabay sheekadu markaan waxa igu la yaab badnaa oon aad la yaabay beri baa safar baan galay safarkan galay waxaan u socday meel aan ahayn adoo shanta Soomaali laakiin meel kamid ah shanta Soomaali meel kamid ah meesha xuduud baa laga galay xuduud beelada markaan xuduudeedii aan taaganahay baa askari baa ila hadlay marka uu walaalkay la socday walaalkay meel baad gaar leexday marka meesha kaliya ku dhex jiray gaariga saareen waan soo dagal dhaw soo dagtay askariga soo dajiyay marka taraag dheer buu moogtay anaa iska rafaadsana marka tinteeda meelaan in yar bas aan soo jeeday ahayd ninka qabiilkayga weydiiyay saadan qabiilkayga aan ugu sheegay timihii inta ku talo iga foqdo intuu iga fujiyay ويقف شيء أنت صاير قفتي قمي قسي adiga mise kaftanka maxaa kaftan ka shaqeynaysaa ani nafsadeedu wayaan halka haddii ma kina laga xiro iska raaxan moogtay laakiin tib gacan laga gooyay kartam isma gooyay way soo qabtaanuna nin askari oo tababar soo qaatay maxaa ka fahamsan ninkoo tintii yareedna helay oo qabiilkayga u sheegay way fujiiday marka ma qabiilka u sheegay darteed uu ha wallahi qabiilka watay ha intuu madaxii kala fujiyay buu wali bixda dadkayga dhaxsaayay ta koray marka waxaa tiri malaha tolo maxaa qabiilka u sheegay ha waa isweydiiyay qabiilka ku tolo muxuu qaba ana qabiil ma markii damaama kala bartay ka qaadan gaadhay marka ayada xitaa markii dambana cabsan jiray waxa sidii jiray bilow lagu dilaaba qabiilka dhawa ka carri jiray waxa sidii jiray baxar baa isku doonatay qabiilka askartu ay madaxa ku fujisaan siri haddii ka warna mid kale loo sheegto ka walaaga siiyo intii aan wadankii joogan meesha aan tagay aan joogay cidna uma sheegi jirin qabiilkayga waayo cabsi bay haysay waxa sidii jiray bilow lagu afduubtay mid marka taas aad ugu leeyahay badnad ilaa imika mid loo xasuusnaada taas aad ugu leeyahay wallahi waxyaabo wax ugu farxad badan maxaan sheegay hadda mid ma sheegay أنا هل ميدو حاجة كوفر فرحت من بهرنا وقت كيف فرحي سمعها كان هذا استرنا دون نعم maalinkii aad iyo aad ugu farxad badnayd oo farxadayda aan soo qiyaasi kari waayay oo waxaan ku raan gaaray heer aan qarax u dhawaado waqti hore bay ahayd yaa imika ma imika ay qabanina kuwa imika meelaha joogo mar hore ahayd wiilkii aan koow isla sheekaysan jirnay macnaha xiriirka jacaylku naga dhaxayn jiray oo tahriibay jacaylka kugu horeey ha yaa waxa la yiri uu dhintay inta bad buu ku dhintaa la yiri markii ugu horeysay ana shakada murugaysan baa isagoo isugu caadi soo wacay maalinkaas ugu farxad bandid ma sha Allah wakaas farxad intaas bay eega jacaylka su'aalka weydiiyay maalinkii ugu murug hadda kii ugu horeeyay kuri maxaa dhigay ma qalad xaga qalad gaalay kii ugu horeeyay guursta ma jirta miyaa wad ciyaarnimadu hay wixii ugu murugta badnaa miyaa basay bad ku dhaxay wallahi waxa ugu muruga badnaa arrin aad iyo aad muruga badan bayd waxaan joogay meel aan familkay ka dhaweyn oo hal qof baa ii joogay markaas halka qofna wuxuu iga maqnaa safar marka kaligii baan joogay meeshaas xitaa cid inaayaga ii garanaysa ma jirin walaalkay baa joogay jira walaalkayna safar buu iga aaday kaliya markaa joogay magaaladaas waxa dhacday wiil naadeerkaya oo walaalkaya oo walaalka ruma ah ayaa waxa dhacday ana fariin u diro isla shaqaysano oo fariin baan u diray fariintiisa anigoo sugaya ayaa waxa soo dhacday geeridiisa inuu dhintay walaalkii ha aabahay kala dhashay dhalay marka walaalkii buu ahaa ana waxa fariin baan u diray fariintiisa anoo sugaya yaan salaad maqrib baan tukamay salaad markaan ka soo baxay message baa soo dhacay message-ka isagan moodayay hadda cid kale igama dambeynba marka fariintiisa oo fray waxaan ogaaday soo geeriyooday oo isla daqiiqadu aniga ila hadlay isagoo banaanka socda xabad lagu dhuftay arintaas aad igu muruga badnayd waligiina ka soo kaban waayay mar walba waxaan xasuusan jiray marka murugta igu badnayd taas Allah rahmo walaal amiin maalinkii horta igu naxdinta badnayd waxay ahayd farxadii hay dambayso yaabkii maalinkii igu naxdinta badnayd waxay ahayd maalinkan oo aroor hore madariso quraan soo baxay anoo meelaha adu wax yar baan ahaa dhagax bur way had meesha quraan baan soo baxay xaasidnimo horta xaasidku ma aflaxay inta lagu yiri carruurta kiciyo qurad wada tukada quraanka soo raacan ka baxsaday ilaa hadda xaasidtahay markaan baxsadaa meel laag ah ayaanoo talaabaya yaa meesha waxay soo baxday darsin maba xumeha iga soo baxaan waan orday marka ordaa waan kufay kadibna marka kufay way wada ursadeen hal mar aydii hal mar intay ku safarsan
habeen bay ursadeen nimanayna cunin abidkii maalinkaas ay ugu naxdin badnayd ay baad ugu cunlahay intaas oo wala dugub lahayn maalinkii ugu farxadda badnaydna waxay ahayd maalinkii aniga hooyaday ay hal mar 3 wiil oo mataana noo dhashay alxamdulilah hooyaday baa dhashay 3 wiil hal mar ما شاء الله maalinkii معانا بيتها مقلد شوك والله بنت دادي والله بالله ما بضامن ولا شيء دبر 3 wiil oo mataana alxamdulilah maalinkaas ay maalinkii ugu farxadda badnayd maalinkii ugu la yaabka badnaydna waxay ahayd maalinkii يا ملانا يا رب لا موجود يا ماي ما شاء الله ما شاء total waxaan la yaabay baan u maarag brother hal mid baan la yaabay qosolkiina faraha badan baan la yaabay انت سوايو سيبر كويشن انت سو waxan weydiiyay والله horta waxay ugu yaab badnaaxeed gabar garabkeeda fadhido 9 koy qosoleysaa maanta maal iga yaab badan ma arkin farxad ma aqaan farxad meel kale imaatay ma sha Allah farxad la ku siiyay hoonahooda amiin aniga naxdintaada والله waxay ugu murug badneed 2019 kii bishii 10aad يا taariikhdi waxaan la xafiday ها waxaan ay geeriyooday waxa la kordhambastooyadii oo gabareed ilaa raxmado ilaa hadda ma hilmaamo waan aad u jeclaa waqtigaas marka ayadana waxay ugu murug badnaa warigii waa murugaba taas ay ugu dambeysay inuu horeysay marka farxadeedana may والله waxay ugu farax badnayd xeedana anoo waxa la hay joogo school boarding ku xareysan 2017 bishii 7 yaa hay soo wacdo hooyo amin maghrib casirka toon isla hadlayna hooyo laakiin maghribkii soo wacday waxay u dhahay hooyo waan dhalay waxa la hay gabadha neegrito markii dhalisay waaye wallahi di ana horta caruurtii waan jeclahay mar walba waxaan jeclahay caruurtii xaafadeena caruur ku soo kordho marka aad baan ugu farxay wallahi arinta markii ii sheegtay hadda waan qaadan waay macquul in la noqon waysay wadan socday xaafadan aaday kaaran sii ka xaafadan tagay kadib baan hooyo la hadlay oo si fiican la hooyo waan nabad qaba ee waxa la hayay gabar hab dhalay waa arintii ugu farx badneed in kastoo 2 sano kadib ay farxadaas maruu igu bedelmatay aad ma santahay aad iyo aad u mahadsanyiin asxaabta garbahayga fadhiya garbigan dhin hal dhinac ay jiraan garabkii wada fadhiya wallahi aad nagu farxiseen mar waad naga farxiseen aniga asxaabtana daawanaysa Samadan Media mar waad naga qoshiiseen waad naga farxiseen mar waad naga naxiseen ya aad kama celinay maadaama maanta aad ka soo muuqateen aad soo horfadhiisateen Samadan mar labaad mar saddexaad iqbal isaga soo dhow ma dhahay waa teamka Samadan Media kamid yahay labadana gabdhood Anab iyo Hooda soo dhawaad in leeyahay wadon haadiyad ila mar roon dhawin okay asxaabteena aad iyo aad u mahadsantihiin ha ilaaween inaad subscribe gareysaan channelka muuqaalkan aad like gareysaan siina share gareysaan soo asxaabka loo gaaro intaan muuqaal xiga dib u kulmeen waxaan kaga tageynaa sidaas iyo qosol wacan